kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal halkan waa garoonka injineer yariisow degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir waxaad ku soo dhawaataan tabin ciyaareedka kulanka u dhexeeya kooxaha kubadda cagta ee horseed iyo gaadiidka horyaalka Soomaaliya Premier League labada kooxoodba garoonka ayay gudaha u soo galeen horseed iyo kooxda kubadda cagta ee gaadiidka علي عدي أيه وقامني عيرتويدا كوحدا هورسيد مادام إبراهيم رستا وكما غنياي لما انتو ذو ديار لبدا كابتن مركز على عدي عبد الخليفة يلا طوري حرشي بدح أتيكا ستيفن أيا سميني باسكا قيبتا كوبا ذي عيارتا قاديدك أيا سميسي أتيكا ستيفن نيكولاس كيكابا أيو الله عياري كيسكا يلا كي عبد السلام حسن عبد النور جيزي عزازي يا إبراهيم إلياس متكودا يا توري دونان إبراهيم إلياس يا حساس متكود إبراهيم إلياس جول يا بريء عيارت نقطي إبراهيم إلياس يا دريي فريكيك وقدام بيتي الشبكة دحدقي وجول كيس اللبات tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee horseed wuxuu ku soo hanbaxay tartankii dowlad goboleedka dalkii gobolka banaadir isagoo kula soo guulaystay gobolka banaadir tartankaasi sanad wacan ayuu qaadanayaa goolkiisa labaad ayuu u ansixiyey kooxda horseed frikiga population sidee taa jarmaa gaadiidka waa lagu baakaynsananti ramos waa uu soo tuuray kubadda ugu dambeyti عبد الخليفة يا سو مدحي نيكولاس كيكابا ستيفن اتشيك ستيفن نيكولاس كيكابا 1-1 جول يا جول يا كدغاي نيكولاس كيكابا ايا عيارتك كدغاي جول يا جول نيكولاس كيكابا ايا عيارتك كدغاي جول يا جول واي كان جول كبربردعه عيارتويدا كوحدا كوبادا عagta ee gaadiidka waa nin saameyntiisa leh waa goolkiisa saddexaad ee xil ciyaareedkan Nicolas Kikaba oo horey laba gool u soo dhaliyay waa nin qadka dhex ka ciyaara Kikaba waa uu doomariyay ugu dambeyntii goolayaha gool iyo gool ee ciyaartu noqotay gool iyo gool ee ciyaartu noqotay 1-1 روسا يلبحي مركن عسان اي قاتين ارسيت قولا يولا ينلسي علامة ده ريد كار سيلو سعودي وكان حساسي قولا اياكو بدا غفصدي اياكو بدا تريدون سلوك الابراهيم الياس ايا تاغن مالمان بوليسيون كيوالو وغفصدي حساسي بيرتا يقرأي حسن عبد النور كيسي حساسي بيرتا يقرأي حساسي مسافة نيرة يكسو توري إبراهيم الياس يا وابي يسكرين وتورايو مركل بوليسيون اي كوران كان كنت غالمية حساسي إبراهيم الياس بتكوت حساسي قول ايها وصو ساريكو بداسي أتيكا ستيفن بنانكي كوبادا سيكا دي فورتور هورس بوليسيون قاديدكا نيكولاس والله قصاري كوباداسي واكن بوليسيون كي نيكولاس كيكابا نيكولاس والله قصاري قدام بيتي كلن كيسا أفراد أيو عياريا 6 جول أيو دريي واو صوتوري بلال أو باباي ما يسان نغن واي دريي نو قدام بيتي قاديدك وايد لسي دانيا عبد السلام دانيا يدلي كوبدس كودا دعدي اصل كذا وحصل توري رانك اللي يرادو نيكولاس كيكابا واكن هيا واو وايد دبل دقيقة قاديدك لبا جول يا جول عبد السلام دانيا يدلي دانيا يا دليي habkay u dhalatay aan eegno
waa u soo baasay bilaal ayaa soo tuuray waa isku dhacdhacday birta isla markii waa u dabaraaciyey xasaasi ayaa kubadda soo tuuri doono friikig ayay soo tuuranayaan horseed xasaasi waa soo tuuray goolku waa kormariyey qaybta koobaad ee ciyaarta ayaa la soo gabagabeeyey 2 gool iyo gool ayaa lagu kala nasanayaa gaadiidka ayaa ku hogaaminayso kooxda kubadda cagta ee horseed ayaa lagu arkacayaa nicholas kigaba iyo cabdisalaan daanya ayaa gaadiidka 2 gool u dhaliyeen markan karim ayaa sameynaya baaska qaybta labaad waa kan gaadiidka ayaan le waa la soo tuuray markan ayaan le good waa kan meel fiican ayaan le حسن عبد حسان بلال ونيكولاس كيغابا سدح جول يا جول عيار سنقطي نيكولاس كيغابا يا برنانك كابيستي شبكة كوحدة أرسيد سدح جول يا جول هيا دبال دقا يا سميريا ويلش قاديدك waa goolkiisa afaraad ee xilli ciyaareedkan 4 kulan 4 gool nicholas kigaba wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda ugu saameynta badan ee ajaaniibta horyaalka Soomaaliya ka ciyaarta xasan cabdi xasaan ayaa u taagay bannaanku ka soo toogtay waa nin lagu yaqaano darbadaha bannaanka laga habaysto fuad nooki asaa dhiibtay kigaba opopoy maysan noqon goolayaha kooxda kubadda cagta ee horseed garabkee kubadda taalla ibraahim ilyas horseeda duulaana meel fiican maadshine fuad ma noqon ibraahim ilyas bannaanka ayay kubadda aaday waase gool kick goolka kooxda kubadda cagta ugu dambeyntii ciyaarta way soo ilaatay waxaana adkaadeen ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee gaadiidka horseedaya sidaa looga adkaaday tabintii toosku waana gintaa nabadgelyo